taariikh ahaan aan xasuusiyo magaaladani iyo sida ku bilaabantay iyo sidii ay markaasi magaalo ay ku noqotay. daawadayaal magaalada Jigjiga oo maanta caasimada dawlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay soo martay marxalado kala duwan iyo waliba maamulo kala duwan oo isaga dambeeyay maamulka magaaladan Jigjiga oo asaasantay sanadkii 1880 waa taariikhda Yurubta ama taariikhda miilaadiga tirsiga miilaadiga ayaa waxay ku bilaabantay oo sabab u noqday inay markaasi magaalo ay noqoto ganacsiga isku xidhi jiray magaalooyinka Herar iyo Zaylac. waxayna goobtani noqotay meel ay ku nastaan ganacsatada awrta wadata ee markaasi ka soo kicitantay ama ka soo safartay magaalada qadiimiga ah ee ku taal xeebta waa magaalada Zaylac kuwaas oo xiriir ganacsi la lahaa magaalada Herar. goobtan ay maanta hadaba Jigjiga ku taalo ayaa waxa ay noqotay meel leh celal biyaha laga cabo waxayna ganacsatadani ama safarkan waqtigaasi ay Jigjiga imanayeen ay keeni jireen alaabta markaasi ay ka mid ka yihiin dharka, sonkorta iyo milixda iyo ganacsatadana ka qaadan jiray goobtaasi ama markaasi iyaguna ganacsi ahaan uga qaadan jiray alaabta ay ka mid ka yihiin subaga, hargaha iyo waliba saamaha. waxa ayna Jigjiga yeelatay muuqaal magaalo intii u dhaxaysay sanadkii 1880 ilaa iyo 90 waa taariikhda tirsiga Yurubta. hadaba sanadku markuu ahaa 1887 taariikhda tirsiga Yurubta ayaa boqortooyadii Menelik ayaa waxa ay dhulkii ay xukumaysay ay ku soo fidisay oo ay soo gaarsiisay magaalada Herar. waxayna boqortooyadu ay xukunkeeda keentay oo markaasi u soo talaabisay oo ay soo gaarsiisay tuulada la yiraahdo Goojaar oo dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Jigjiga. balse sanadkii 1890 ayaa boqortooyadii Menelik waxay magaalada Jigjiga u soo magacawday nin la oran jiray Cabdalla Daha oo ahaa nin ganacsato ah una dhashay dalka Yaman. waxaana Cabdalla Daha magaalada ka dhisay maamul rayid ah waxaana uu soo geliyay boqolaal qoys oo Arab ah. waxayna magaaladu yeelatay ganacsi xoogan waxayna magaaladu ka bilaabantay hadaba xaafada afraad ee ku taala dhinaca Toga iyadoo aad maanta ku arkayso guryihii iyo fooqaqii qadiimiga ahaa ee markaasi ka tagay Cabdalla Daha. waana halkii ay magaaladu ka bilaabantay iyadoo arki karto muuqaalka ay magaaladu waqtigaasi ay lahayd waxaana u badnay meelihii markaasi ceelasha biyaha laga qoday ee markaasi dadka iyo xooluhuba ay ka cabayeen iyadoo ay sii jireen ceelal gacmeedo ay hore dadku u isticmaali jireen ayaa haddana waxay noqotay inay casriyeeyaan ceelasho oo markaasi loo adeegsado dhinaca biyo dhaaminta dameeraha iyo gaadiidka kale ee la midka ah. daba sanadkii 1917 nin la oran jiray Tagla Hawareat ayaa waxa uu gudoomiye ka noqday magaalada Jigjiga waxaana uu sameeyay wax uu eg master planka ama qorshahagaha maanta magaalooyinka lagu yaqaano kaasoo markaasi bixiyay jidad yaryar oo ay dadka iyo xooluhuba maraan. hadaba sanadku markuu 1920 ilaa iyo 1927 waa taariikhda tirsiga Yurubta ama taariikhda miilaadiga nin la oran jiray Gadla Gorgis ayaa markaasi maamulka magaalada gudoomiye ka noqday. marka hadaba taariikhdu hay sanadku 1931 ayaa ciidamadii fashistaha Talyaaniga ee ka soo duulay Yurub ayaa waxa ay magaalada Jigjiga ayay gacanta u gashay oo markaasi ay gacanta ku dhigeen. balse sanadku markuu ahaa 1941 ayaa waxa ay Talyaaniga ka saaray magaalada Jigjiga ciidamadii Ingiriiska kuwaasoo maamulka magaalada Jigjiga iyaguna gacanta ku dhigay ilaa iyo markay taariikhdu ahayd 1948 waa taariikhda tirsiga Yurubta. hadaba maamuladii kala duwanaa ee soo maray magaalada waxba kama ay qaban dhinacyada adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo waliba adeega kaabayaasha dhaqaalaha. waqtigaasina wixii ka dambeeyay waxaa xukunka magaalada Jigjiga ay hoos tagtay maamulka boqortooyada Hayle Salaase. waxaana boqortooyadu sanadihii 1960 ay magaalada Jigjiga ka furisay dhowr dugsi iyo waliba dhismaha isbitaalka Karamardha. balse waxay ahayd adeegaasi kuwa u danaynaya maamulka boqortooyada iyo dadka iyada taageersan. shacabka deegaanka Soomaalida ee ku dhaqan hadaba magaalada Jigjiga waxba iyaguma finayn adeegyada boqortooyada Hayle Salaase bixisay waxaana loo diiday inay waxbarashada ama iskuulada galaan ama ay helaan adeega dhinaca caafimaadka. hadaba sanadahaasi ayaa boqortooyadii jirtay waxay ahayd mid u taagan adeega qowmiyad gaar ah waxayna xukunka magaalada Jigjiga haysatay ilaa laga soo gaarayo sanadkii 1974 waa taariikhda tirsiga Yurubta markaas oo boqortooyada